shirkuun ku qabsoomay holka golaha wasiirada qasriga madaxtooyada magaalada Baydhabo iyo gudoomiyay wasiiru dawladda madaxtooyada dowlad goboleedka Koonfur Galbeed mudane Maxamuud Maxamed Khayre oo weheliyayaan agaasimaha guud ee madaxtooyada la taliyaha arrimo amniga madaxweynaha iyo la taliyaha wasaaradda haweenka arrimaha xuquuqul insaanka Mayhaayko iyo la weeladaayeen ee u qaabilsanaha ciidanka AMISOM arrimo bulshada Faadil Karaar ee kulankan ku qabsoomay madaxtooyada uu gudoomiyay wasiiru dawladda madaxtooyada oo la weeladeen Faadil Karaar Mayhaayko iyo diiradda ka saareen sidii ku wada hadal lahaayeen askaraynta awlaadda horumarinta bulshada iyo waliba sidii la dardar gali lahaay howlo hortebinta in leh arrimo bulshada saasoo kale kulanka meel haas la qaaday sidii la ku horseeday lahaay goobo iyo ku tabaayaan ciidanka AMISOM iyo binaayaan bulshada ka nool sidii la deersii lahaay adeegyadii oo baahanyiin Faadil Karaar oo ay qaabilsanaha ciidanka AMISOM arrimo bulshada ma uu sheegay anti dowlad goboleedka Koonfur Galbeedka bogaadiyayaan sidii oo ilaaliyaan xuquuqul insaanka saasoo kaleedna dadaal iyo onka biyahayaan sidii iyo ciidanka AMISOM qaybta arrimo bulshada iyo dawladda iyo isu kaalada lahaayeen wacyigelinta la soo biyo qaybo shal duwan ee bulshada iyo waliba sidii loo horseeday lahaay askaraynta awlaadan qaandeerna wasiiru dawladda madaxtooyada iyo agaasimaha guud ee madaxtooyada Faadil Karaar ma iyo la wadaagana antiga go'aanta dowlad goboleedka Koonfur Galbeed intii ilaalida xuquuqul insaanka saasoo kaleedna iyo marna raalan ku nagdaan anti la askaray awlaadan qaandeerna saasoo kaleed ma iyo tilmaameen anti dawladdu ku go'aanta diyaar garowga eedan sidii kooxo argagixisada al-shabaab lanku sifay lahaay guutaan deegaanada Koonfur Galbeed qaybo shal duwan bulshadana doorjooyin ku qaadada lahaayeen Abdixakiin Fiqi oo la taliyaha madaxweynaha arrimo amniga iyo shirka markii dhamaaday warbaahinta dawladda la hadalay ma isu tilmaamay shirkuun intii ay kooyo diiradda ka saareen arrimo bulshada saasoo kaleedna iyo tilmaameen intii ku go'aanta dawladda Koonfur Galbeed intii ay ilaalida xuquuqul insaanka bismillaahi raxmaani raxiim saaka waxaan xafiiska madaxtooyada kula shirnay Faadil brother Faadil oo madax ka ah oo ah isku duwaha u qaabilsan ciidamada AMISOM dhinaca civilianka ama dhinaca ma aragtay shacbiga u qaabilsan ayaan kula shirnay waxaa shirka ka soo qayb galay wasiir dawladda madaxtooyada iyo agaasimaha guud ee madaxtooyada Koonfur Galbeed waxaa kaloo ka soo qayb gashay la taliyaha dhinaca xuquuqul insaanka haweenka ee wasaaradda haweenka Koonfur Galbeed iyo anigoo ah la taliyaha dhinaca amniga ee madaxweynaha waxaan ka wada hadalnay runtii arrimo aad muhiim u ah oo la xiriira sidii AMISOM iyo ay u wada shaqayn lahaayeen civilianka hadday noqon lahayd dhinaca ma aragtay ilaalinta xuquuqul insaanka dhinaca ilaalinta child soldierka ama ilaalinta in ilmaha da'dooda aanan gaarin 18 aan loo tababarin ciidanka waxaa kaloo aad looga hadlay dhinaca defectorska ama kuwa ka soo baxsada al-shabaab dhibaatadeeda iyo mushkiladeeda ka soo baxsada oo dhinaca dawladda u soo aada mustaqbalka iyadoo runtii la gartay in arrintaasi ay muhiimad weyn u tahay dhinaca la dagaalanka al-shabaab iyo sidii looga guuleysan lahaa isla markaasna loo sameeyo barnaamijyo oo lagu dhisayo mustaqbalkooda iyo shaqooyin loogu abuurayo oo ay si ay ugu mid noqdaan bulshadooda Soomaaliyeed ku dhaqan Koonfur Galbeed Soomaaliya runtii arrimahaas iyo arrimo kale aad u muhiim ah ayaan ka wada hadalnay dhammaantoodna runtii waxay noogu dhammaadeen si fiican oo aad u wanaagsan walaalkeena Faadilna runtii qayb weyn uu ka qaatay arrimahaas muddo ka soo shaqeeyay oo ilaa iyo dhowr sanadood ah ee Koonfur Galbeed uu ku sugnaa marka waana nin oo runtii khibrad u leh sidii arrimahaasi loo horumarin lahaa marka insha Allah barnaamijyo aan isla garanay baa jiro oo u baahan in laga wada shaqeeyo oo lagu horumarinayo dhinaca civilianka oo dhinaca xuquuqul insaanka dhinaca dhiirigelinta iyo taakuleynta dhalinyarada ka soo baxsata wiilasha iyo gabdhahaba ka soo baxsada shabaab iyo sidii mustaqbalkooda loo dhisi lahaa dhinaca sidii horumarin mashaariic yaryar loogu sameyn lahaa sida qodida ceelasha iyo wixii la mid ah oo dadka biyaha ay ka cabaan marka runtii aad uu mahadsan yahay walaalkeena Faadil waxaan rajaynaynaa marar kale badan in arrimahaas isugu imaan doono thank you shirkuun uu gudoomiyay wasiiru dawladda madaxtooyada saasoo kaleedna iyo la weeladeen Faadil Karaar oo qaabilsanaha ciidanka AMISOM arrimo bulshada Mayhaayko intii soo socday diiradda la ka saaray arrimo ka saabsan arrimo bulshada iyo waliba sidii shaqo abuur lanka soo biilahay bulshada mayna soo wada jira la isla qaaday intii
dowlad goboleedka koonfur galbeed iyo ciidanka amisom ku wada shaqeeyaan horumarinta bulshada ka nool deegaanada koonfur galbeed. Faysal Maxamed Isaaq, TV-ga iyo raadiyaha koonfur galbeed, madaxtooyada.